dhegaystayaal haddii si kooban loo qeexo roobdoontu waa tuugmo waa bariyo si kal iyo laaba xagga eebbe loola jeesto maalin gaajo iyo haraad lala ildaran yahay oo gaagmareebto abaarihii ay dhulka saabato markii ay naftooda iyo midda qoysaskooda ay u yaabaan waa salaad iyo gacmo warasho si wada jir ah ummadaha muslimka ah ay ilaahood kaga duraantaan roob ay ku badbaadaan waa bannaanbax diinta islaamka lagu yaqaan oo bulshada meeshaas ku dhaqan qaybaheeda oo idili ay ka qayb qaataan iyada oo tufku khayraha wadaadka ah iyo ardayga daanku qalinlaha ahi ay aad uga muuqdaan goob walba oo maanta oo kale roobdoon laga qalqaaliyo labadoodaas waa ardayga iyo wadaadkee waxaa saddexeeya oo marar badan isagana goobaha lagu arkaa degaanka markaa la joogo gabyaaga caanka ka ah barnaamijyadii kan ka horreeyey midkood sidaan ku soo xusayna wadaadka iyo ardaygu haddii ay quraan akhris roobdoonta kaga qayb galaan gabyaaguna wuxuu kaga qayb qaataa maanse allabari ah taasoo in laga aqbali doono ay soomaalida badankeedu rumaysan tahay hase ahaatee maalmahaas oo kale tixaha la tiriyo qudhooda isku si maansayahanadu uma abbaaraan mid baa isaga oo aan u gogol dhigan toos u bilaaba maansadiisa uu ducada ka buuxiyey eebbe ayuu aad isugu liidaa tabardarradiisa ayuu muujiyaa ilaah buu hufaayo awood iyo hodantooye oo idil isaga u qiraa erayba eraygii uu ka qoto dheer yahay ayuu ku duceeyaa isaga oo aad uga cataabaya dhibaatooyinka faraha badan ee abaartu ay dadka iyo dunyadaba ku hayso allaha u naxariistee sidii carays ciise ayuu eebbe ku baryaa tix u eg saarkii aan toddobaadkii hore idiin soo gudbiyey ee dhex socotadiisu ahayd hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliyee ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree dhinaca kale waxaa isaguna jira maansayahan baryada eebbe aan ku degdegine ka hormariya canaan iyo cambaarayn kulul oo uu u jeedinayo maantaa bulshada roobdoonta isugu soo baxday wadar ahaan ummadda ayuu ku eedeeyaa inay iyadu abaarta garabsatay sidaa darteedna aanu isagu allaha weyn waxbana ka saarayn dembiyadii ay galeen iyo kuwa ay weli faraha kula jiraan intuu u sheego ayuu kula taliyaa inay toobad keenaan inay muslim quman noqdaan in colaadda iyo daadiska dhiigga walaalahood ay baajiyaan haddiiba roob iyo naxariista eebbe ay rajo ka leeyihiin sidii alla u naxariisagii cali xuseen ahaa ayuu gabagiisa ku soo gebagabeeyaa eygii hadduu idin duwaday aadanba habawshe oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane tix gaaban oo roobdoona waxaa isagana laga hayaa allaha u naxariistee gabyaagii caanka ahaa ee la odhan jiray cabdilaahi suldaan tima caddana lagu naanaysi jiray gabay xoogaa dheer oo qodobo dhowra uu ku soo qaaday ayuu ku soo gebagabeeyey qayb uu ugu talagalay roobdoon markaa dalka oo idil ka aloosnayd siday soomaalidu tidhaahdo waxaad mooddaa markii la abuurayey isaga iyo cali xuseen in dhoobadooda isku meel laga soo qaaday labadu isku degaan weligood ma noqon sidaasoo ay tahayna waxay ahaayeen laba gabyaa oo cabsida eebbe qabyaalad nacaybka iyo soomaalinimaduba ay aad ugu weynaayeen weliba intaan dhiirrado ayaan odhan karaa labadooda iyo carays ciiseba waxay u dambeeyeen maansayahanadii ereygii ay ku tiraabaanba uu daacadda ka ahaa kuwii wanaagga ummaddoodu uu dhaaxba ka hor muuqday maansayahanadii dhaqankooda iyo gabaygoodu ay islahaayeen ee afkooda iyo uurkoodu ay mid ahaayeen si kastaba ha ahaatee roobdoon ku aadanayd abaartii 1946kii dalka ku wada baahday ayuu tima cadda tix allabari ah kaga qayb qaatay ha yeeshee baryada eebbe toos uma uu gudageline tabtii cali xuseen yeeli jiray ayuu yeera dadweynihii ayuu dhab u haaraamay iyaga ayuu mas-uuliyadda abaarta iyo ciqaabta la marsiinayo wax ka saaray oo tolow muxuu sidaa u yeela meelisyadiisa soo socda sida ka muuqan doonta guud ahaan dhaqamada diinta islaamka weydaarsan ee soomaalida uu ku arkay ayuu gabyaagu saluugsanaa wuxuu aad ugu dhaliilayay dilka iyo dagaalada aan turiinshaha lahayn ee dhexdooda ka dhaca markaas buu ku xukumay inay yihiin duul ay islaamnimadii kala fogaadeen taasoo uu u soo daliishaday xilliyada ay ladnaanta iyo barwaaqada ku jiraan
kibir awgiis inay eebbahood iska ilaawaan ayna xusuustaan oo keliya sida abaarta qayb caradiisa ka mid ahi markay ku habsato. wuxuu timacadde tixdiisa ku bilaabayaa tilmaan naxdin leh oo abaartii baastaaley la baxday uu inaga siinayo. wuxuu ina dareensiinayaa in ay si walba uga duwan tahay abaar kasta oo markaas ka hor dalka ka dhacday. oo halkee buu warkaana ka helay? odayo badan oo da'ah iyo waayo arag doora oo uu waraystay ayaa ugu warramay tan oo kale inaanay weligood u soo joogin. waxa ay tixdu dhammaanaysaa gabyaaga oo erey qura oo tuugmo ama duco ah aan ku tiraabin asii soomaalida u sheegay hadday roob doonayaan waxa ku habboon inay yeelaan iyo sababaha rabbi deeqdiisa ay ku mutaysan karaan. isaga oo aad mooddo inuu ku dhici kari la'yahay amaba uu kaba xishoonaayo dadka dhaqan xumadooda iyo anshaxdarradooda uu arkay inuu eebbe u baryo ayuu meeriska tixda ugu dambeeya waxa uu ku leeyahay maanta oo kale allihii roobka u di'in jirayow soomaali way liidataa way dandarraysan tahay. wuxuu yidhi abaar solohoday jiilaal surkaxan samada oo qiiqday dhulkoo seeman geedkoo solmaye cawshu socon weyday siigadii hawaariyo ilaa saxalkii dooryaan leh intay sigatay waxaa ii warramay soo jireennada mid ka siifad kululmaynu arag shabanka maanta. waa tii saraayi iyo colaad loo sakaar jabaye waa tii sulkaa wada gigtay kibir saroognayde sayndheerihii inuu onkado lala saqaafayey subax iyo waxaa lagu baqdaa sadarka yaasiine samir iyo salaad iyo ducaa lagu sugnaaday. markay suruqdo uunbay indhaha sare u yuubtaaye subaxday nimcadu taagan tahay waa sidii kale haddii aad iswada saamaxdaan saaka wuu curanne ilaahii dhibcaha siin jirow way silloon tahay. markay suruqdo unbay indhaha sare u yuubtaaye subaxday nimcadu taagan tahay waa sidii kale haddii aad iswada saamaxdaan saaka wuu curanne ilaahii dhibcaha siin jirada way silloon tahay. ilaahii dhibcaha siin jirow way silloon tahay duco toosa ma aha isla markaana duco ka waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da iyo qayb afraad oo ku saabsan maansada abaaraha iyo roobdoonta. dhegaystayaal abaaraha qarnigii 20aad soomaalida saxariirshay ee magaca dheer yeeshay waxaa ka mid ahayd tii 1974 ilaa 75 abaartii lagu silcay ee dadkii iyo duunyadiiba ay sida ba'an ugu tabaaloobeen. markay soo gebagaboobi weyday abaartii ay dabadheer u bixiyeen oo tiro aan yarayn oo reer miyigii xilligaasi ay ku le'deen wixii soo harayna ay degaamadoodii hore ka barakaceen. xukuumaddii soomaaliyeed ee markaa talada haysay waa abaartii ay kumaakun soomaali ah badbaadisay markay webiyada iyo biyahooda ay u daadguraysay. goortii ay hubsatay inaysan ku fillayn waa abaartii ay xukuumaddaasu dunida ugu qayra dhaansatay ee diyaaradihii waaweynaa ee midoogii soviyeeti qoysas idil lagu soo raray iyaga aqalladoodii iyo wixii neefaf ahaa ee u haray haddiiba ay wax u hareen. waa abaartii markii ugu horraysay reer miyi badan helikobtarka iyo webiyadaba ay isbarteenoo kolkii la soo dejiyeyna ceel axmed sablaale dujuumo iyo kurtunwaarey ay ka midka noqdeen dalka meelaha ugu magaca dheer. dowlad soomaaliyeed oo wuxuun awooda lahayd inkastoo ay markaa dalka ka talinaysay haddana dabadheer waxay meelaha ugu horreeya kaga jirtaa abaarihii dhibaatooyinka waaweyn ay ummaddu kala kulantay. abaarihii taariikhda soomaalida galay ee dhismaha bulshadeedana aad wax uga dooriyey aadna u dhaawacay. sida ay waayeel badani weli xusuusan yihiinna waxay ugu dambaysay abaarihii qarnigii 20aad soo maray ee magacyada lagu xusuusto
ay soomaalidu u bixin jirtay waayadii uu hal abuurkeedu noolaa. sida ay soomaalidu yeesho iyo barnaamijyadii kan ka horreeyey sidaad ku maqasheenba mar kasta oo abaar darani ay la soo daristo waxaa degaanada dalka oo idin laga qabanqaabiyaa roobdoon eebbaweyne lagu baryaayo. haddaan idin xusuusiyana baryadaas la isugu soo baxo waxaa laga qayb geliyaa gabyaaga maalintaa goobjoogga ah kaasoo madashaa ka mariya tixa roobdoona oo qof waliba uu ku celceliyo inta goobtaa weli la jooga iyo haddii laga tagaba. haddaba abaartii dabadheer oo hal abuuradii soomaalida ee waagaasi ay maansooyinkooda aad ugu soo qaadeen waxaa raggii gabyi ogaa ee dadweynaha roobdoonta kala qaybgeli jiray ka mid ahaa allaha u naxariistee gabyaa la odhan jiray maxamed guuleed faarax cabde oo markuu noolaa ay waalane reer miyigu ku naanaysi jireen. wuxuu ahaa maansayahan jacaylka geela lagu falay oo had iyo jeer afka ku haya tixihii uu meesigaas ku ammaani jiray ee waxtarkiisa guud uu sida faahfaahsan ugu tilmaami jiray. tirada yar oo maansadiisii badda ahayd laga hayo haddaynu wax ku miisaano wuxuu ahaa gabyaa ay halabuurnimadiisu hibada dhabta ah ka dabqaadanaysay. noloshiisii oo idilna wuxuu ku dhammaystay bartamaha dhulka soomaalida gaar ahaan degaamada buuran loo yaqaan haradoolood iyo geyiga xoolo daaqeenka ah ee ceelasha cabudwaaq iyo baranballe looga soo arooro. tixdiisan roobdoonta ah inta aanu baryada eebbe si buuxda u gudagelin wuxuu gabyaagu u horraysiinayaa ammaanta rabbi iyo kooshiisa. awooddiisa aan soohdinta lahayn iyo kelinimadiisa ayuu qirayaa. sidoo kale wuxuu ka markhaati kacayaa aqoonsha dunida iyo maamulkeedaba inuu isagu leeyahay cidina aanay la wadaagin. halkaas hadduu marayo ayuu malaha isweydiiyey sababaha uu ugu malaynayo in baryada lagaga aqbali doono amaba uu ku mudan yahay. dabadeedna isaga oo isagu isweydiinta caynkaasa isaga jawaabaya ayuu ina barayaa inay jiraan sababo dhowr ah oo baryadiisa cuslayn kara aqbalna uu eebbe kaga heli karo. oo maxay yihiin? waa 3. marka hore waa gabyaaguna bili iyo karaamo ayuu alle agtiisa ku leeyahay. marka labaad isniin oo ah maalin barakaysan ayuu dhashay waana isla maalintii nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee uu dhashay. marka saddexaadna waa nin hadda ka hor saadaashiisa la arki jiray oo iyadoo dhabowday ay dad badani u soo joogeen. dhowrkaas ujeedo ayuu hordhaca gabayga u xambaariyey isagoo ku laraya duco dhextaar ah oo sidaan arki doono uu dhowr jeer ku soo celcelinayo. wuxuu yidhi ilaahow adaa aadahoo lagu aguujaaye ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane ilaahow aqoonshiyo runtiyo amarku waa kaay. ilaahow abuurtaadu waa abadmaguuraane ilaahow anoo kale tix baa lagu ikraamaaye ilaahow isniin baan dhashiyo ururkii khayraad. ilaahow orkaan saadiyaa la abshiraystaaye ilaahow ayaantan gabyaa lay ogaan jiraye ilaahow adduunkan ma arag odayo raagaaye ilaahow afguriyaa dhacay iyo aamus iyo yaabe ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahaye. intaa markuu yidhi ayuu si ay muruga ka muuqato wuxuu eebbe ugu soo bandhigayaa darxumada iyo dacdarrada ay abaartu ummadda soomaalida ku hayso sida geerida badan ee macluusha dhulka ku wada baahday ay sababtay. nafaqadarrada awgeed carruurta godka qarkiisa wada saaran, adhiga dabar go'ay, guud ahaan xoolaha tarabtarabta u le-anaya ee meel walba daadsan, xigtada isnacday ee aan waxba istarayn waxna isugu ool, isxidhiirintii qaraabo ee ay diintu dadka fartay oo laga tala baxay, aanyawsiga ummadaha shisheeye oo aan laga sariiganayn. wuxuu yidhi
ilaahow dadkii iilayey oo alagu loo luudiye ilaahow ilmuhu waa signiin adina naafowye ilaahow imbii baanu nahay eegga dabadeeda ilaahow unuun iyo lafaa ididka noo yaalla ilaahow afguriyaa dhacay iyo aamus iyo yaabe ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay ilaahow arxama weys nacdiyo ehel la tuugaaye ilaahow adeer iyo walaal weys agmarayaane ilaahow cilmiga aakhiro iyo eed la garan waaye ilaahow ugandha iyo ruush laga arsaaqdooye ilaahow amxaarada cunnaa loo abeedsaday ilaahow ikhyaartii looley ulama tuuraane mar haddayan aalada wadwadan agabla weeyaan ilaahow addoolada nirgaha loo anqarin waaye ilaahow haruubkaa ingegaytan iyo iimeey ilaahow afguriyaa dhiciyo aamus iyo yaabe ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay ugu dambaystiina duco toosa ayuu gabyaagu eebbaweyne ula jeensanayaa isaga oo naftiisa iyo ummad weyntaba u hadlaaya ayuu rabbi ka baryayaa cirka oo inta marqaha laga furo geyiga ku hoora daaq iyo ubax lagu ildoogsadana ka soo saara onkod iyo hilaac ay dhagaha iyo indhuhuba ku diirsadaan dhibic aan cudur iyo aafar ahayn geela oo reer walba inta u dhala caanihiisa laga haago subagga la lusho oo qumbayaasha la haysto ka bata gaadiidkuna uu qaadi kari waayo iyo markaas aroos iyo isguursi ay barbaartu u faarumaysato wuxuu tixdiisii ku soo gebagabeeyey ilaahow abaartana dawee ilina noo hoorto ilaahow cirkuna noo unkado ubaxna noo laaco ilaahow jir aan aafo wadan nagu ekee maanta ilaahow carradu aarantoo aayar lagu naaxo ilaahow abay noo dhasho inaan kullayn waayo awaarihiiyo siigada allow roobku ku arooro allow subag ardaayada ku xiran awrtu sugii weydo ilaahow aroos loo baxo iyo eelaxid gees weyn leh dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo